halkani waa Radio Boorma Somali Canadian TV. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ودرسي تفسير كسلسلة افهم آية وحكب اللوذي آية داشنية الضباطنات سورة الشعراء. waxaynu ku jirnay qisadii nebiyullaahi ibraahim. waxaa inoo dambaysay inuu nabigu su'aal weydiiyey dadkii sanamyada caabudayay oo uu yidhi, war waa maxay waxaanaad caabudaysaan? ayaguna ay ku dhaheen, waa sanamyo aanu caabudno oo aan weliba joogtayno oon ku dul nagaano cibaadadeeda. su'aal kale waa isagii weydiiye oo yidhi, oo miyaa idin maqlayaan? waxse ma idin tarayaan? haddaydan caabudin wax ma idin yeelayaan? aabbayowganu baan ka soo gaadhnay iyagoo sidaa samaynaya waa iyagii jir. hadda wuxuu rabaa marka mowqifkiisa inuu sheego uu ka qabo. qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim, afara'aytum, bal ka warrama, maa waxa kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwaad tacbuduunahum antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayowgiinba waxaanad caabudaysaan. aabbayowgii alaqdamuuna ay sii horreeyey. fa innahum sanamyadaasu caduwun li cadow bay yihiin ilaa rabba alcaalamiin, caalamiinta rabbigood mooyeen. caalamiinta rabbigood oo kii isagu aan caabudaye mooyeen, cibaadaadka waxyaabaha kaleeto oo dhan caabudaysaan, kuwa caabudaya iyo kuwa la caabudayaba cadow bay ii yihiin adigu haddaan caabudo. nabi ibraahim saynu soo sheegnay keligiibu umma ahaa. sida suurat alambiya aan ku soo marnay, waa isagii dagaalka galay keligii. bani aadamkii markaa jiray iyo keligii waa kay dagaalameen. oo uu keligii soo istaagay. allahna subxaana wa tacaala markii dambe isagii oo keligii ah uu guuleeyey. iyagiibu markaa wuxuu rabaa inuu tuso albaraa'u mima yacbuduun. oo kii aayaddii kale, innii baraa'un mima tacbuduuna min duuni illah, waxaan ka bari ahay waxaanaad caabudaysaan ee sanamyada ilaahay kayrkiisa. marka waa cadow bay ii yihiin buuri. waxaanaad caabudaysaan idinka iyo aabbayowgiinba cadow bay ii yihiin. caduwun li, manaa wuxuu ka bari noqonayaa caabidiintii iyo macbuudiintii labadiiba. gaaladii wax caabuday iyo wixii caabudayeen labadiiba uu ka bari noqonayaa. aayaddii kale waa ku rabbi subxana wataala inaga soo noqlinaya hadalkiisa lainoo sheegay isaga oo leh, innii baraa'u mima tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah. wuxuu yidhi, beri baan ka ahay waxaad caabudaysaan. waan diidnay waxaad caabudaysaan. idinka diidnay. kafarnaa bikum ay jaxadna, ku kufrina waxaad ku jirtaan. annaga iyo idinkana dhexdeenna cadaawad baa taalla ilaa aad ilaahay ka rumaysaan. anaa wuxuu isku si uga bari noqday oo uu isku si u diidan yahay waxaad caabudaysaan iyo cibaadada aad ku jirtaan, iyo idinkan caabidiinta oo xumaanta ku adkaysanayaba isku si baan
إذن لعول هاي عدو بإيه إنهم عدو لي إلا رب العالمين عالمين تربي قوضو عبادة ديسا تيلا إيه أبو ري أموين كاما كسور ربيا وحمشا وحا استدراها متصل بكالي إنايو iyagu haba caabudeen sanamyadane haddana sibay allaha weyn u ictiraafsanaayeen kuwanna kuwii kale oo aan kuway la caabudaynay saasay u badan tahay ilaaha weyn ina caabudsanaad markaas wuxuu noqonaya siduu mutasil sanambaxayaabad caabudaan oo dhan ka beri baanahay allaha weyn mooyeen oo markaa inay cibaadadoodu ka mid tahay qayb ay u ogol yihiin allah haddii la yidhaha weye haddii ayna allahba aqoonina wax kaloo caabudaan siduu munqatic buu noqonaya muxuu noqonayaa ilaa rab alcaalamiina laakina rab alcaalamiina acbuduhu caalamiinta rabbigood baan uga caabudaya oo aydan idinku caabudin isnuhu kolkaa muqatab buu noqon haddii la yidhaaho iyagu ilaah mayna aaminsanen laakiin waxay u badan tahay inay alla weyn aaminsanaayeen oo inay iyagu arkin laakiin sida mushrikiinta u badan yihiinba yani ilaahaas cibaado nogama baahnee kuwan baan aan u caabudayna iyagaa markaa nooga shafaaqaadaya waxaasay kulligood wada qabaan marka sanamyadan ardada caabudaan sidaasay u badan yihiin saa inay ahaydna u badan tahay oo uu leeyahay ilaahyada aad caabudaan ka saxda ah mooyeen inta kaleeto oo dhan iyo idinka caabudiinta aba waan ka beri waa cadowba yihiin oo ka beri baanahay ilaa rab alcaalamiin marka caalamiinta rabbigooda waxa uu oga soo reebayo ee keliga u caabudayo wuxuu na tusi doonaa ayadaha soo socda allah tilmaamihiisa uu ku jeclaaday uga mudan yahay inuu caabudo نعم إلا رب العالمين إلا الذي فطرني يعني آية كالكاسة الرابي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الله يسوي أبورين مويه محل عبود سانودان بريبان كاهي نبي قمرك وحوي نبارا يا درسي عابدون غير الله ومعبوداتهم وعبادتهم إن اسكسي لون نعو looga bari noqdo waa saddex arrimood kii caabudayey kii u caabudayey iyo cibaadadiisa waa in laga bari noqdo kan la caabudayaayo haddii uu yahay wax caaqil ah oo isagu cibaadadaas la caabudo yaa loo kala qaadayaa addoommo ilaahay oo wan wanaagsan oo in la caabudo aan iyagu amrin oon ogolayn oo la iska caabuday kuwa kama beri noqonaysa sida malaa'igta iyo awliyada ilaahay oo kolkay dhinteen lagu kala tagay oo saa looga caabuday iyo Uzayr iyo Ciise iyo waa la caabuday laakiin kuwa iyagu hadna la caabuday yidhi iyo shayaadiinta iyo kuwa iyagana kuwa cibaadada raadi ka noqdayna waad ka beri noqon cibaadadii ilaah loogu shiriyay waad ka beri noqonaysaa naam in cadow li cadow bay yihiin ilaa rab alcaalamiin qaala wuxuu yidhi afaraytum ka warrama maa waxa kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda antum idinkiiyo wa aabaa'ukum abayowgiinni alaqdamuuna ee hore fa innahum kuwaasu caduwin licadow bay yihiin ilaa rab alcaalamiina caalamiinta rabbigoodan cadoway ahayn isagu allihii subxaana watacaala igu lahaa cibaadada mooyeen inta kaleeto oo dhan waa cadowgayga ka beri baan ahay inta caabuda ilaah kayrkiina waa cadowgayga ka beri baan ahay cibaadadoodana waa ka beri baan ahay iyagu marka intuu waa isugu dirayeen oo namruud waa kii ilaah baan ahay yidhi iyo kuwa namruud baa ilaah baan ahay yidhi ilaahyadu yuu uga mid ahaa sanamyo kalena way lahaayeen marka waxaasoo dhan buu ka beri noqdo waa kii la dagaalamo yani soo istaagay oo isku dhaceen oo markii dambe inay gubaan doonaan ilaahna badbaadiyey sala allahu wasalam calaa nabiyina muxammadin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin